حديث كأبي هريرة ورني البخاري كسبنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام آخر الزمان كوحي من دونا وقت يوقف قرآن وأبي لين حوله قادنا يا حلال بمسوا حرام طب الله قرية يا أبا هذا ما كتير هذا ما سكت يسوى حرام ضد بدن بحكون حرام تمحيه يا إما كابان فرصتها لا شان يسوى هدو ترى هذا يقولين مركب فتنة آخر الزمان كذلك كل عيسى أيه كم يتهي معاسي حرام marka xaaraantu cuquubooyinka ay leedahay waxa kamid ah ducada iyo qofkii aan laga aqbalin xadiidkii wada haysaa uu nabigu sidee ducada looga aqbalaya qofkii xaaraanta ku xeernay waxa kamid ah amalkii saalix ahaa oo aan laga aqbalin sadaqada wuxuu ilaahay aqbalato ilaahay waa tayiba wixii tayibuun buu aqbalaa sadaqa iyo deeq laga keenay xaaraana ilaahay ma aqbalo waxay kamid tahay asbaabta keenta cadaab qabriga rasuulka waxa la tusiyay sallallahu alayhi wasallam habeenada kamid oo la dheelmiyay wabi dhiigan in dhex taagan oo dhagax lagu garaacayo malaa'igtu waxay u sheegeen kii riba cunaha ay weey baasha ribada la macaaside la iska dayn kari laay waxay ka kaxaysaa xaaraanta xoolaha la haya barakada labada qof wax kala iibsanaya haday run sheegaan xaqiiqadana cadeeyaan ilaahay uu barakeeyaa beecooda hadii ay wax qarqariyaan muhiqat barakatu bay'ihima iibkooda barakada waa laga qaadaa ila mid ba xaraan isticmaalaya خاتمدنا إلهي وكحمية أو خاتمده وسيجيا قفه هديه وحرام عيهاي ولا شهاده مركز برترينيا وجاجالينيا وحا أيدشا نفط عاصماتك يا عرورته أنت بقى نيكي قبيه وحول عقوبة هالك لو قال يعوكه ردا عرورته كلا يساكي عنا باس لماي أجنو كقرياتك وكقرينا يا عذرهم بهاي فرمسيهم بتاجنا يا دختر فرمسي يا دخترهم بتاجنا يا isaga iyo habartiisa iyo ciyaalkiisu way sii socdaan go'an baab bay ku jiraan inna rabbaka la bil mursad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa adigu daldalaysa xaaraanto iskama arkayside ilaahayna wuu ku daba taagay inna rabbaka la bil mursad mursadku waxa weey ilaahay oo ku arkayo ku eegaya oo ku ilaalinayo adigu aanad ogeyn iska ilaalinaynin marka caruurtii iyo iyaga laga yaabo caruurtuna inay ku kalifaan iyo reer inama amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahu indahu ajrun azim intuu leeyahay balqani ka dhigo dhaxal uga tago dadka la tartamo kan yeer ayuu rasaynaya baash iyo daalalaho duuniyo laho kal laho dabadna markaas xagga dambe isaga lagu bukaasaya almuhim waqtiyadan damana sahara aynu sheegnay waa fitna aad u badan marka in laga feejignaado oo qofkuna uu ku xisaabtamo xalaasha inuu ku dadaalo si uu u badbaadi karo adduun iyo aakhiraba وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى